بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أدبا السلام يا أصحاب تقييمها هي قدر أنت مضن يقدر وانا سامي قد يسني سبراياش برشدة وحين إن شاء الله تعالى فردقينا كوكرفين دونا معلمه يمعد أفكارتي دكتور عبد الوهاب المسيري هرتيدنا وحنو معنا يا إنجنير يانله iyo sayidka Cabdullaahi oo runtii waxa weeye door muhiim ah ka geystay dhicitaanka barnaamijka iguna soo martay qaaday barnaamijkan qabashadiisa hadduu alla idmo waxaynu isku dayi doonaa inaynu waxoogaa ka tibaaxno kana niraahno maalmihii iyo sooyaalkii iyo taariikhdii uu noolaa Allahu naxariistay Dr. Cabdi Wahaab Al-Masiri iyo sidoo kale inaynu wax ka taataabano afkaartiisii ugu muhiimsanayd uu isku dayay inuu ku soo gudbiyo 65 kitaab oo Carabi ku qoran iyo 10 kitaab luqadda Ingiriiska ku qoran iyo sidoo kale buxuusaad ama baaritaano iyo qormooyin iyo maqaalo fara badan oo kuwa la walaalaha ma awoodi karayna akid inaynu dhammaan soo koobno afkaartaas iyo maalmaha uu ku dhitay Dr. Cabdi Wahaab Al-Masiri kutubtiisa bas waxaan isku daynaa hadduu alla idmo inaynu inta ugu muhiimsan qofkii waxa weeye hore u garanayeen oo naaqisho oo waxa weeye in la gorfeeyo qofkii hadda ay barad u tahay Dr. Cabdi Wahaab Al-Masiri uu ka helo miftaax ama furo wanaagsan oo kutubtiisa ku dhex galo qodobada marka aynu kaga hoos hadli doono dulucdan caawa inoo qaran waxay noqon doontaa hadduu alla idmo kow inaynu ka hadalno Dr. Cabdi Wahaab Al-Masiri taariikhdiisii fikir ما تاريخ ديسي تاريخ عانيد سويالكون لكن تاريخ ديسي حرير كلا لهاي تفكر iyo qaabkii uu dhismay fikir ahaan ee keenay soo saaritaanka fikirkiisan oo tagoobaan noqon doonta talabaadna inaynu ka hadalno waxoogaa mucda afkaartii Dr. Cabdi Wahaab Al-Masiri iyo soo gudbintaankii uu soo gudbiyay afkaartii waaweynaa iyo tusaalayaashii iyo tilmaamihii uu raaciyay si fahanka afkaartaasi ay soo dhawaadaan ta saddexaad ee isku day doonaan waxay noqon doontaa in afkaarta ay aragtiyaha aynu waxa weeye ka soo qaadayna Dr. Cabdi Wahaab Al-Masiri aynu isku dayno inaynu joogtadeena Soomaaliyeed waxa weeye la lamaanayno oo intay naga anfacaysa bal aynu gaar u xilno oo aynu dhiraahno warintaas aad baynu anfacaysaa haddii aynu ka bilowno waxa weeye qodobka koobaad hortiina aynu dhignaa afeef ah wararta maxaa laga faa'iideeyaa inaynu naaqishno ama gorfayno ama ka hadalno afkaartan inuu fakri leeyahay iyo ka hadalka tijaabadiisii iyo taariikhdiisii iyo sooyaalkii uu soo maray hal qodob oo muhiim ah taaynu kaga jawaabi karnaa oo suura noqon karta inay waafi ku noqoto jawaabteeda oo ah marka aynu ka hadlayno insaanka ama bini aadanka aqoonta qaabku uu kala dhaxlo waa qaab qor isku dhiiba waa qaab ka soo gaara jiilkii hore wixii uu dhitay jiilkan ku anfacsadaa waxbuu sii raaciyaa jiilka ka dambeeyana qaabkaas ugu sii goglaa wadadii ay mari lahaayeen marka inaynu mufakiriinta ama ha noqdaan reer galbeed ama ha noqdaan reer bari ama ha noqdaan mufakiriin iyo aqoon-yahano iyo gabayayahano Soomaaliyeed in wixii ay soo saareen aqoonaha in la diraaseeyo oo lagala soo dhexbaxo wixii muc iyo miida dabadeetana loo waafajiyo joogtada laguna sii ibdaaco oo lagu sii daro wixii kale suuragal ah joogtada waxa weeye ku sii qurux badnaanayso kadibna loo gudbiyo jiilka soo socda waa waxa insaanku u nool yahay oo de suuragal ma hayno insaanku jiilkii koobaad ilaa jiilkan hadda oo qolo kastaba gaarkooda isku qabto oo tiraahdo warana wixii aan haysanay kuwa dambena uma baahnin qaabkaynu u naaqashayna ama faa'iidada ugu weyn u naaqashayna mufakir waa taas ah inaynu ka dhaxlayno wixii waxa weeye uu soo maray fikradihiisina aynu wax ka soo dheeganayno kadib si aynu waaqacan iyo joogtadan aynu hadda joogno ugu helno jawaabo suuragal ah su'aalaha taagan haddii aynu si bal halaasi ama dulmar ah u sheegno dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa sooyaalka iyo taariikhda Dr. Cabdi Wahaab Al-Masiri 1938 8 Oktoobar dalka Masar magaalada Damnahor oo ilaadii u jirta 160 kilomitir dhanka waqooyi ee Masar ayuu ku dhashay Dr. Cabdi Wahaab Maxamed Ahmed Al-Masiri 1944 ayuu ka bilaabay waxbarashada isla magaaladii uu ku dhashay iyadaana dugsi hoose mid dhexe iyo ku saraba ku dhameystiray 1955 ayuu soo afmeeray darajada koobaad ee jaamacadda waxa uu ka diyaariyay falsafada
mar kale 1959 waxa uu ka qalinakiyay jaamacadda Iskandariya qaybta adabka oo ku soo takhasusay luqadda Englishta kadibna waxa uu u safray dalka Mareykanka oo ka soo dhameystiray darajadii labaad ee jaamacadda master iyo sidoo kale darajadii saddexaad ee jaamacadda oo doctora ay 1969 haddii aynu bal mar kale inkastoo aynu markii dhaweydba waxoogaa ka hadalnay sheegno qaabka uu arkayo Dr. Cabdiwahaab Masiiri inuu ka faaloodo marka koobaad sooyaalkiisa intii aanu gelinba isagu ka hadalka fikradiisa waxa uu ku cileynayaa in mufakirka marka ay la naaqishaya ama filosoofka ama qofka caalimka ama laashinka in ay muhiim tahay inuu qofku ogaado biicadii iyo waaqicii iyo joogtadii ku agadaamneyd si uu u fahmo wixii ka keenay ereygan haddii kale waxay noqonaysaa inuu qofku kaliya ta qaato fikrad aan bislayn oo qayrina markuu ogaado laakiin wixii ku ag xirnaa ee ka keenay qofkan fikradaas ayaa iman kartaa inuu wada fahmo suuradii oo dhan oo uu arko sawirkii isku dhameystiran marxaladda samaysanka ee koobaad aynu ku bilaabi doono maalmihii Dr. Cabdiwahaab Masiiri waxay noqon doontaa inaynu marka koobaadba u qaabayno 3 qodob ama u kala qaadno 3 qodob waata koobaad inaynu ka faaloonno taariikhdii ay lahayd bulshadiisu oo ay soo hoosgalayso magaaladiisii iyo sidoo kale taariikhdii ay qoyskiisu lahaayeen talabaadna waa dhacdooyinkii siyaasiga ahaa ee waqtigaa jiray iyo joogtada uu noolaa qaabkii waxa weeye dhacdooyinka siyaasiga ay isku tarayeen sida ay u saameeyeen wacyigii iyo baraadkii iyo qofnimadii Dr. Cabdiwahaab Masiiri qodobka saddexaadna waxa weeye dhaqamadii iyo soo jireenadii ka dhex jiray deegaankiisa iyo bulshadii uu la noolaa qaabkii ay u qoreen una qaabeeyeen shakhsiyadda Cabdiwahaab Masiiri oo taa waliba uu aad u dul uudidsanayay ka hadalkeeda oo uu arkay inay shakhsiyadiisa ku lahayd qayb weyn noloshii uu dabna hor ku qaatay haddaynu ka bilowno qodobka koobaad ee ah taariikhda ay lahayd magaaladiisu ee saameyntana ku lahaa shakhsiyadiisa waxaynu ka bilaabi karnaa Damnahor oo ah waxa weeye magaalo fac weyn leh sida uu ku sheegay doctorku oo marka dhanka la eego u taxan ilaa Fircawn marka dhanka la eegana u teedsan ilaa Nabi Maxamed calayhi afdal salaatu wa tasliim oo sheegayay doctorku in magaalada Damnahor masaajidkii ku yaalay Tawba oo dhisay asxaabigii Umar bin Caas sidoo kale reerka uu ka dhashay Dr. Cabdiwahaab Masiiri ayaa iyaguna ahaa reer ku suntan aqoon iyo waxa weeye ogaal oo waxaaba la sheegay Masiirigii koobaad dabcan waan ku sheegay buuggiisa Rixlatu Fikri in dad fara badan oo uu ka mid yahay mufakirkii Suudaaniga ay diraaseeyeen al-aila Masiiriya marka Masiirigii koobaad oo ka soo kici timay baa la yiraahdaa Maghrib al-Arabi Morocco inuu ahaa fiqiyahan waxa weeye aqoonta fiqiga baax ku yeeshay qodobka saddexaad aynu ka hadli doonaa hadduu alla idmo waxa weeye sooyaalkii iyo dabagalkii uu ku sameeyey Dr. Cabdiwahaab Masiiri taariikhda waxa weeye mujtamaciisaasi lahaa iyo magaaladiisaasi qaabka ay shakhsiyadiisa u saameysay oo sida caadiga ahaan inuu ogsoonahay taariikhda ay deegaan leeyahay ama bulsha leedahay qofka ku dhex dhasha aad bay u saameysaa maadaama uu insaanku ahayn mid go'aan asal ahaan ee uu yahay mid ka dhex samaysmaya ama ku dhex abuurmaya biicada iyo waaqaca uu joogo ee uu nool yahay marka si guud haddaynu eegno magaaladii uu ku dhaqnaa Dr. Cabdiwahaab Masiiri taariikhdii fac weyn lahayd iyo hadduu alla ku idmaya reerkii uu ka dhashay iyo dabagalkii uu ku sameeyey labada taariikhood aad bay u saameysay shakhsiyadiisa marka koobaad waxay u saameysay wacyi taariikheed ereygu bixinayo alwacyi taariikhi wacyi taariikheed ama baraad sooyaaleed ayay u saameysay oo keentayba inuu waxa weeye qabatimo taariikhdaas oo gorfeeyo oo ka hadlo oo waxa weeye dhabadeedii hilibkeeda aad u raaco waqtigaasna sidoo ku faaleen Cabdiwahaab Masiiri aad bay muhiim u ahayd qofku inuu taariikhda barto oo waxaaba kamid ahay muhiimadaas inuu qofku barto abtirsiintiisa ilaa ka awow halka waqtigii dambe awoyaashii cidii uu noqday Cabdiwahaab Masiiri ay muhiim far badan ay bartaan waxa weeye abtirsiinta waxaana dhanka kala mid yihiin markaad eegtid mujtamaca Soomaaliga oo iyaguna muhiimad far badan siiya abtirsiintooda min ka awow ilaa ka awow oo sooyaalka ay taariikhdaasi qaabka ku xafidmayso qodobka labaad ee waaxda koobaad wuxuu noqonayaa wacyigii siyaasiga ahaa ama baraadkii siyaasiga ahaa waqtigaa yaalay ee joogtada jiray qaabkii uu shakhsiyadda Cabdiwahaab Masiiri u sameeyey waaga uu noolaa Cabdiwahaab Masiiri Masar ku dhaqnaa waxay haystay mustacmarka Ingiriiska
waxa uu ka sheekeynaya marka ay kasoo dareeraan iyagoo waxa weeye kuraya ama yaryar iskuulka inay calaamadda v oo calaamat annasr ama guusha ay ku tilmaami jireen ay u tilmaami jireen dhanka gumaystihii. sidoo kale ay samayn jireen ururo waxa weeye siri ah ama gaara oo aanay doonin inay ogaadaan ingiriiska iyo cidda u shaqaysa ingiriiskuba. waqtigaana ay ahaayeen dad 11 jir iyo 12 jir aan dhaafsanayn, qaarkoodna kaba yar yihiin. isagoo gorfaynaya taa ma ka hadlayaan in badan buu leeyahay Cabdi Masiir. waxaa laga yaabaa inay ururadaanu sameynaynay iyo mawaadiicda aanu ka hadlaynay aanu rabnay inaanu kula dagaalano ama wax ka qorno oo aan ka nidhaahno isticmaalkii jiray waqtigaas. waxaaba laga yaabaa buu leeyahay hay'adda ciyaar waxa weeye ciyaarnimo oo dhalaannimadu naga keenaysay, balse waxay taasi tilmaam weyn u tahay qaabkii wacyiga siyaasiga oo u saameynaya shakhsiyadooda. oo waxa weeye waxaa ka sheekeynaya mar in xataa ay sameeyeen xogside ama majalla oo ay ku qori jireen maqaalo, oo maqaalkii koobaad uu ku qoray Cabdi Masiir uu ahaa qaabkii lagu heli lahaa nolol iyo amni iyo xasilooni, faa'iido ay leedahay nolosha iyo amniga iyo xasiloonidaas. marka aad buu uga sheekeynaya Cabdi Masiir wacyigiisa fikir iyo wacyigiisa iyo dhismihiisa qofnimaba in taariikhdaas siyaasiga ah ee jirtay waqtigaasi ay qayb weyn gashatay. qodobo kale oo ka sheekeynaya oo taasi cadeynaya oo tusaalayaal uu ku lamaanaynaya ah sida tusaale ahaan in waqtiga uu u tegay nin farmasi haystay ama dhakhtar mar looga diray dawo, dabeetana uu weydiinayo inuu siiyo dawo aanu sameynin ingiriisku. marka uu waxa weeye ninkii doctorka weydiiyay sababtana uu leeyahay maadaama mustacmilkii mar rabo wixii mustacmil sameeyay. aad buu u farxayaa ninka haysta farmasigu in ilmaha yar ee daadiisu aadka u yar tahay inuu hab noocaas u fikirayo. dabeetana wuxuu siinayaa waxa weeye abaalmarin lacageed. uu ka diidayaa Dr. Cabdi Masiir, wuxuu leeyahay fikradaha iyo mabaadi'da laguma iibsada laha. mar labaad baa dana ninkii waxa weeye dahsho iyo layaab waxa weeye galaya ilmaha yar ee saa u yaray haddana qaabka noocaasa u fikiraya. soo bandhigayo waxa weeye wacyiga siyaasiga ayuu Cabdi Masiir markuu wixii fikriya ka hadlayo aad u sheegaya inay tahay inuu qofku fahmo dadka iyagoo dhallaanka ah wacyiga taariikhiga iyo sooyaalkaana wax ka ogaaday oo taxanaha taariikhdooda fahmay. sidoo kale ay saameysay axdaasta siyaasiga ah ee jirtay waqtigaas iyo dhacdooyinkii siyaasiga ah ee maalinlaha inuu soo baxayo qof aad u shiilman. dabeetana uu waxa weeye layaab badan u muujinaya Dr. Cabdi Masiir dadka waqtigan hadda nool waxa weeye dhacdooyinka siyaasiga ah aanba muhiimad badan siinin haba u taabtaan si toosa ama si dadban waxa weeye dadka mashquulsan wacyigii iyo dabaraaci siyaasiga. ma farayo dadka in maalinle loo mutaabiciyo siyaasadda, balse si guud qofku inuu ka warhayo waxyaabaha noloshiisa saameynta tooska ah ku leh. taasina waa waxa weeye qodobka labaad ee waaxda koobaad aynu kaga hadlaynay waxa weeye samaysanka ama maalmihii Masiiri iyo waxa weeye shakhsiyadiisu iyo fikirsa usoo samaysmatay koobaad. qodobka saddexaad ee waaxda koobaad wuxuu noqon doonaa dhaqamadii yaalay waxa weeye Dabnahoor iyo qaabkii ay u qoreen shakhsiyadiisa. taa weliba markii horena waataynu sheegnay aad buu uga hadlayaa qodobo fara badan iyo waxa weeye sheekooyin fara badan uu la walaalaynayaa oo waxa weeye marar badan waxaabuu ka dhigayaaba inay tahay sababaha waxa weeye keenay isbedelkiisa fikiree waaweyn. dib baynu ka arki doonaa markaynu ka hadlayno mucda afkaartiisa. dhaqamada ugu waaweyn ee xusida mudan ee saameeyay shakhsiyadda Dr. Cabdi Masiir waxaynu ka tilmaami karnaa ama ka tibaaxi karnaa oo koobaadi isku naxariisashada qofka ka yar ama naxariisashada qofka yar iyo qadarinta iyo weynaynta qofka weyn. dhaqankaasi wuxuu ahaa dhaqan aad u yaalay Dabnahoor. Soomaaliduna dabcan markaynu eegayno indhaha miyigoodii dhaqankaasi aad u yaalay in la taqdiiriyo ama la ixtiraamo ama la weyneeyo qofka weyn. sidoo kale turaal iyo naxariis loo muujiyo qofka yar. sibaana isugu sabanaan yihiin miyada caalamka oo dhan. marka welibana waxa weeye Africa oo kale dadka miyada ku dhaqan oo dhan dhaqanadoodu sibay isku shabahaan maadaama al insaan awal ama fidradoodii saliimka ah inta badan ay ku tacaamulayaan. marka taasi aad buu u saameysay shakhsiyadiisa, koritaankeediina qayb weyn bay ka qaadatay in la ixtiraamo waxa weeye qofka ka weyn. oo marba ka sheekeynayaaba inay isku raaceen isaga iyo aabihii waxa weeye sar ay lahaayeen oo u koreysnaan jirtay oo dadka waxa weeye maadaama ganacsada reerkoodu ay ahaayeen nin ilaalin jiray oo da-weyna oo sarta ay lahaayeen reerkoodu hor fadhiisan jiray waashmaanka ahaa uu isku dayayo inuu gacanta Cabdi Masiir dhunkado. dabeetana uu u daynaya Cabdi uu dhunkanayo
aabihii oo waxa weeye agtiisa taagan dabeetana uu il adag ku eegayo isagoo waxa weeye diidan ficilkaa uu ogolaaday cabdiwahaab masiiri inuu sameeyo ninkaa weeye markay tagaanne uu waxa weeye uu sheegayo in qofka ka weyn isaga la dhunkado balse aan waxa weeye cagsigu aanu dhicin intaa wixii ka dambeeyay Dr. Cabdiwahaab masiiri wuxuu sheegayaa inuu diiq fara badan ku dareemi jiray xataa marka qofka ka yar uu israado u helo dhunkashadiisa oo marba ka sheekeynaya inuu tagay dhulka mid dhulalka waxa weeye Yurub dabeetana ay ku soo urureen dad fara badan oo yaqaana oo fikirkiisa wax ka akhriyay shakhsiyadiisana wax ka og isku dayeen qaarkood inay gacantiisa dhunkadaan dabeetana uu ku dareemay xaraj aad u fara badan isagoo waxa weeye ka dhaqaaqaya waxa weeye wacyiga uu lahaa sidoo kale dhaqanada yaalay damnahoor uu aadka u faalaynay Dr. Cabdiwahaab masiiri fikir ahaan salba u sameynay wax kamid ah takrifal la'aanta inaan waxba lagu takrifal oo wixii la haysto laga faa'iideysto ilaa intii waxaasi faa'iido darro noqonaya wuxuu ka sheekeynayaa in hooyadii Allah u naxariistay ay waxa weeye wax kasta oo guriga yaala qiimo waxa weeye weyn ku fadhiyay hatta quraarada laga mariyo wixii waxa weeye lagu talagalay ay mar labaad lagu sameyn jiray caadad taahilo dib loo isticmaali jiray wuxuu ka sheekeynayaa shaararkii uu xidhnaan jiray Dr. Cabdiwahaab masiiri in marka uu isagu ka dhamaado xidhashadooda qof labaad inuu xidho aanay suuragal noqon jirin oo waxa weeye marba wuxuu leeyahay waxa weeye gabadhiisii ayaa waxa uu yimi waxa weeye nin miskiina oo dawarsada dabeetana dharkii guriga yaalay intii waxa weeye aan laga isticmaalayn oo dhan bay siisay wuxuu diiday dharkii Dr. Cabdiwahaab masiiri wuxuu yiri dharkani uma mareynaya in waxa weeye mar dambe la isticmaali karay sidoo kale wuxuu ka sheekeynayaa markii waxa weeye uu u guurinayay ama uu guursanayay inankiisu inuu hudheelkii la soo kireeyay wixii cunto ee lagu cunayay oo Dr. Cabdiwahaab masiiri yiri wixii soo hara waan qaadaya waxaan geenayaa jaarkayga iyo xaafadaydii si ay iyaguna u cunteeyaan oo ay noola qaybsadaan ugu yaraan farxaddan isagoo ku tilmaamaya in waqtiyada farxaddu ay tahay waqtiyadii waagii hore dili jiray kala sarreynta bulshada iyo dabaqaadka oo qof qaniya iyo qof faqiiri marka meel wax lagu cunayo aan la wada dareemi jirin qof kastaba waxa weeye dhankiisa darsan jiray oo ka cuni jiray faalaynayana in waqtigan hadda ayba tahayba waqtiyada farxaddu waqtiyada ugu waxa weeye cadcad labada dabaqadood ay aad u kala muuqdaan oo de waxa weeye arooskii iyo xafladii la hordhigayaba askar si ay waxa weeye u qabtaan qofkii ugu yaraan aanay ka muuqan haybad iyo maal iyo dabaqad marka isagoo faalaynaya guurkaasi wuxuu leeyahay wixii cunto soo haray ii reeba nimankii isagoo la hadlaya waxa weeye hotelka haystay nimankii hotelka haystay way la yaabayaan dhaqankaas waxay leeyihiin niyo maxaad ka wadaa wixii cunto soo haray noo reeba kasuu leeyahay waxaan rabaa in ay waxa weeye mujtamaci iyo dadkii deegaanka ayaan kasoo jeedanay la farxaan iyagoo hiiftaamayo oo dhibsanaya amarkaas bay ka yeelayaan uguna jawaabaya cuntadan oo dhan marka waxa weeye laga dhamaado annagu waxaan ku ridnaa xashiishkaan ku ridnaa kadib waxa uu imanaya ninkii hotelka dhan haystay baa uu imanaya oo oranaya waniyo doctore cuntada soo hadha waxaan u qaybinaa dadkii shaqeynaya hotelka aad buu u farxay doctorku wuxuu oranayaa bes cuntada inoo kala qaybinta soo hadha qaybna shaqaaluhu cunaan qaybna aan u qaada jaarkayga si ay waxa weeye dhammaystirnaan u soo baxda meeshii in wixii cuntadii waxa weeye laga tegay aanay dayacmin qofkii waxa weeye baahida uu qabay ay u tagto marka dhaqamada yaalay damnahoor shakhsiyadiisa aad bay u saameeyeen xataa markuu nuqdada takrifalka kala faaleynayo hadii ay mar labaad eegno wuxuu ku xirayaa dhaqanka mustahlika ama dhaqanka reer galbeed yaala hadee qofku ka iibsi badan yahay ayuu ka xigaa dhanka laandheeranimada iyo waxa weeye dabaqada sare uga dhow yahay marka niqaadaas iyo niqaada kale qodobada kale la halmaalay dhaqamadii yaalay damnahoor shakhsiyadda Cabdiwahaab masiiri aad bay u saameysay aad bay u qortay fikrahaana aad bay u diyaarisay wada keentay markaa inuu bilaabo akhriskii uu bilaabo fikirkii uu bilaabo isbedeladii fikira dhacay ilaa marka dambe uu gaaray inuu soo saaro waxa weeye natiijkii iyo soo bixitaankii fikira uu yeeshay inta markaynu kaga tagno marxaladii koobaad aynu u bixinay marxaladda samaysanka aynu gudagalno waaxda labaad ee dulucdeena caawa daaran tahay oo ah mucdi afkaarta Dr. Cabdiwahaab masiiri haddaynu isku dayno inaynu bal soo taxno qodobada ugu waaweyn ee ka dhaqaaqaya fikradihii uu Dr. Cabdiwahaab masiiri kutubtiisa inta badan kaga hadlayay sidoo kale muuqaaladii uu duubayna aadka uga dhex muuqday waxaynu qodobka koobaad ka dhigaynaa waa aragtida Dr. Cabdiwahaab masiiri uu ka lahaa jiritaanka bini aadamka iyo akhlaaqda qodobka labaadna waxaynu ka dhigaynaa insha allahu tacaala
si guud marana qof kastaaba u akhrin karaya qodobkaas maadaama uu aada uga hadlay doctoorku muddo 15 sano ku dhadhowne uuba u jilib laabtay si uu soo saari lahaa mawsuucadiisa caanka ah alyahuud walyahuudiya wasahiyuuniya. qodobka saddexaadna wuxuu noqon doonaa inaynu faaqidno faallo iyo waxa weeye mariftirna ka bixino mashruucii reer galbeedka qaabkii uu doctor cabdiwahaab almasiiri usoo bandhigay sidoo kalena u naqdiyey. qodobka afaraadna wuxuu noqon doonaa qodobka saddexaad hoosgelaya balse aynu si gaara uga soo xulnay oo ah doctor cabdiwahaab almasiiri iyo calmaaniyadda maadaama cabdiwahaab almasiiri kitaab gaara u khasisay ama u dooray alcalmaaniya aljuziya walcalmaaniya alshaamila wuxuu u bixiyey inaynu bal iyadana waxoogaa halaacsano oo aynu wax ka nidhaahno. aynu ku bilowna aragtida uu ka lahaa doctor cabdiwahaab almasiiri jiritaanka bini aadamka iyo akhlaaqdu waxay soo hoosgelaysaa fikradda guud ee waxa weeye uu cabdiwahaab almasiiri lahaa alislaam ama diintii uu aaminsanaya islaamka. haddaynu bal halkaa dhex gelino si uu qofku u fahmo fikraddan markii koowaad base u timi fikradahan ka hoos taxmaya maadaama doctor cabdiwahaab almasiiri uu maray taqalubaad ama ka dhado fikri oo badan. doctoorku waqtigii uu ka bilaabay waxa weye isticmaalku jiray in hore uga soo hadalnay ingiriisku haystay dalkiisa wuxuu doortay isagu dhalinyartii ay isku asaag ahaayeen isku dabaqad ahaayeen intooda badan waqtiyada fasaxa waxay bixi jireen rixlaad iyo safaro laakiin isagu wuxuu dooray inuu kutubta akhriyo oo waxa weeye makaatibtii xaafadooda ee jaarka ka agdhowaa uu kolba kitaab la xulay oo wanaagsan oo maankiisa iyo maskaxdiisana waxa weye la jaan qaadaya uu akhriyo hadday tahay falsafad hadday tahay siyaasad iyo hadday tahay diin. markaa doctoorku waqtigaa wuxuu bilaabay inuu fikir ahaan bislaado asilo badan iyo su-aalo badan oo wujuudiya ama jiritaanka ku aadana ay ku furmaan dad badan buu kala kaashaday sida suu sheegayay kitaabkiisii rixlat fikriya ku dhex sheegayo macalinkiisii carabida tusaale ahaan oo kale u dhigayay inuu su-aalo waxa weeye duunkiisa culayay u bandhigay suuga jawaabo base uu ustaadkii siiyey jawaabo aanu ku qancin doctoorku. intaa kadibna uu doctoorku waxa weeye gaadhay marxalad aan la mahadin oo ah marxalat alilxaad. intaa ka horna uu usii marayba inuu ku biiro shuyuuciyiintii iyo waxa weeye nidaamkii markisiga ee waqtigaa jiray aadna u faaleeyay noqdada markuu marayay oo uu leeyahay waxa weeye xisbiga aan ku jirnay dadkii markisiyiinta ee ku jiray waxaad dareemaysaa in keliyata sababta ay usoo galeen ay ahayd sababta maadiga inay waxa weeye bilaaduun ahayn laakiin aanay ka ahayn ka fikrad maadaama uu aada u dhalisanaa doctoorku akhlaaqda dadkii waqtigaa ku jiray markisiyada. markuu doctoorku gaadhay marxaladda ilxaadka uu ku tilmaamayo qaws dhexdii akhlaaqdaydu way joogtay laakiin fikradihii wujuudiga ahaaba ayaa waxoogaa khalkhalsanaa. doctoorku intaa kadib wuxuu bilaabay inuu aada ugu kuurgalo fikradaha inuu wax badan akhriyo waxa weye dhacdooyin noloshiisii kaga dhacay sida dhacdadii uu jeclaaday ooridiisii doctor huud alxijaazi ninkii markisiga ay saaxiibka ahaayeen deetana uu su-aal ula holaday ka waraynanta haddii aan guursado ninkiina uu ku yiri waa gabadhan waa kala dabaq sarreysaan oo gabadhan waa dabaqada burjuwaasiyiinta adna waxatay dabaqadan waxa weeye dhexe aynu isaga wada jirnay iska daa kuma qalantee laakiin markii isagoo ka eegaya ninkaasi jaanibka maadiga ay ku tacaamulayeen markuu laakiin hooyadii weydiiyey ee hooyadii ku tiri hooye qalbigaagun eego miyaad jeceshahay gabadha mise ma jecli. marka halkaa wuxuu kala soo dhex baxay doctoorku insaanku inaanu ahayn keliya tajasad hadhowna waan caddayn doonaa fikraddaase waxay kasii muuqan doontaa markaynu sheegayna afkaartiisii uu ka dhaqaaqayay inaanu insaanku ahayn jasad balse uu leeyahay jaanib kale oo ruuxiya oo aan lagu fasiri karayn wax itusi taabsiiye. halkaa waxaa ka dhex muuqanaysa doctoorka markaynu saa usoo sheegnay taqalubaadka fikriga ee uu lahaa waxaa ka dhex muuqanaysa manhajiyadii uu raacayay doctoorku. sidoo kale waxaa ka muuqanaysa in fikradahan aynu sheegi doono ee aadka u bisleeyay uu soo maray hilin iyo dhabo aada u adag oo waqti badan uu geliyey akhris badan uu geliyey safara badan uu geliyey tacaamulaad iyo dhaqanna fara badan uu arkay kadibna uu soo shiilay oo intani ay tahay miidii iyo mucdii uu waxa weeye kala soo dhexbaxay. fikradda koobaad ee uu ka dhaqaaqayo doctoorku waxa weeye muslimiin ahaana dhammaanteen uu ka dhaqaaqayna waxa weeye fikrat aljasad waruux jirka iyo ruuxda inuu insaanku u qaybsan yahay waana fikrad runtii uu doctoorku aada u dulgoodiisaday oo uu leeyahay waa fikradayna kala waabaysa ama ina kala farqinaysaba inaga iyo reer galbeedka maadaama reer galbeedku keliya tahay ku go-een jirkii iyo wixii la fasiri karayay laakiin ay aada u ihmaaliyeen ama iska fogeeyeen wax kasta oo ruuxda oo iyagu u arkayaan in la fasiri karayn balse laakiin la fasiri karayo. nuqdada koobaad ee doctoorku aadka u maalgashaday fikradiisana aadka uga muuqata waxa weeye fikrat aljasad waruux isagoo qura maaha dakaatiro fara badan iyo mufakiriin iyo falaasife fara badan baa nuqdada
وحوي آد عرب وادكي وكم يهي صاحبكي علي عزت بيجوفيتش والنقطة يسمون آد وقع الله مركو كهذا كتاب كيسي الإسلام بين الشرق والغرب سيدو كلا وحوي مفكركي صوفيقة سعيد النورسي آد بوقع الله النقطة سو كلا وحيو بحيي الإنسان الأسمائي الإنسان الحرفي دكتور ضاع عبد الرحمن باي يسوي النقطة آد وقع الله ومركو عقوشة كلا قيبيني العقل المجرد العقل المؤيد العقل المسدد وقيبي النقطة إنه إنسان جسد ككومية هي الروح waxay ka mid tahay fikradaha xoog ugu dhaqaaqay Dr. Abdulwahab Al-Masiri النقطة labaad Dr. Abdulwahab Al-Masiri oo aad ugu dhaqaaqay fikradiisa inta badan ka muuqata waa fikradda ay taasi dhalinayso yeetii ka horeysay in muslimiin hayna ah fikrad al-akhlaaq دكتور ku aad ugu celcelinaya insaanku inuu yahay kain akhlaaqiya taariifta waxa weeye insaanka la siiyana qayb laga dhigo in insaanku akhlaaq leeyahay akhlaaqdaasi waxa weeye ay ku sameysmayso marka koobaad qaab fidriya oo insaanku uu ku dhalanayo adduunkiisa ay ku culan tahay marka koobaad qaybna uu ka dhaxlayo waxa weeye islaamkii iyo naskii quraanigii quraanka ahaa iyo sunnadii nabiga ee la walaalka ahay jawharka insaankuna uu akhlaaqda yahay markaas uu dabeetana hadhow in arki doonaa markayna reer galbeedka fikradooda naaqashaynay uu leeyahay insaanka damiirka xayiga iyo akhlaaqda wanaagsan ayaa keenaysa nolosha baraariheeda xadaaradna kicin karta iyada qudheeda kali kuma aha fikradaas oo kale waxa aad u qabay Malik bin Nabi markii uu dhigayay mashruuciisi shuruud nahda ee turaabka iyo waqtiga iyo waxa weeye uga dhigay insaanka wuxuu saddexdaaba hooskii inuu yimaado meesha al-aamil ad-diini oo qayb ka sii ah al-aamil al-akhlaaqi in xadaarada ku dhismayaan inta hadaynu kaga soo waabano aragtida guud ee jiritaanka iyo bini aadamka iyo akhlaaqda ku aadan Dr. Abdulwahab Al-Masiri si kooban u lahaa aynu xogaa dhex gelino manhajkii uu raacay Dr. Abdulwahab Al-Masiri si wax u taxliiliyo mashruuciisa inuu soo gudbiyo waxaan noqdada ka oran karaynaa fahamkeeduna muhiim u yahay in Abdulwahab Al-Masiri marar qaarkood marka akhriyiisa mashruuciisa ama daawanaysiin maqaadicda fuliyowga ee uu duubay aad arkaysid waxyaabaha qaarkood adiga kugu muuqan karaya inay aad u fududahay tusaale ahaan noqdadii aynu sheegaynay ee ahayd jacaylkii uu qaaday Dr. Huda Xijazi oo marwadiisa noqotay markii dambana inuu ay ka mid ahayd waxyaabihii soo islaamiyay ama ka soo celiyay fikradii qaldanaa iyo sidoo kale markii ay u dhalatay ilintiisu inuu u arkay waxa weeye kainkan yar ama noolahan yar ee noloshiisii kusoo biray ee uu wax kasta diyaarka u yahay inuu horo inay qayb ka noqotay waxa weeye aaminaadiisii iyo fikradii waxa weeye markii dambe isbedelkii uu ku soo waabtay islaamka qof markuu naqaada yar oo kala arko aad ku yar wuxuu oranaya war waxa yar malaamaha wax fikrada loo bedelo laakiin marka koobaad waan fahnaa manhajkii doctorku wax ku taxliilin jiray oo raaci jiray doctorku wuxuu raacay manhaj ah in dhacdooyinka yar ee nolosha dhacaya ay dhalaan fikrada waaweyn nolosha dhacda yar oo kasta oo dhacaysa ficil kasta oo insaanku qabanayo aragti kasta oo bil aadamku soo gudbinay ha yaraatee ha weynaato waxay hoos imanaysaa manduumo guud ama isku xir guud oo fikrada ah oo dabeetana ay ka dhalanayso akhlaaqda iyo dhaqanka iyo waxa weeye aragtiyaas waa sababta keenaysa in Dr. Abdulwahab Al-Masiri marka daawanaysid ama aad akhriyaysid kutubtiisa in waxyaabo yar oo aad u fudud uu aad uga sheekaynayo xataa marka mashruuca reer galbeedka soo gudbinayo uu galiyo xataa riyaadada say u arkaan ciyaarta say u arkaan siday u arkaan mutcada siday u arkaan jasadka siday wax u iibsanayaan siday waxyaabahaas oo dhan wuxuu u galayaa Dr. Abdulwahab Al-Masiri inuu ururiyo waxyaabaha yaryar ee yaala waaqica si uu isugu xidho dabeetana uga soo saaro fikra kulliye marka manhajka uu raacay Dr. Abdulwahab Al-Masiri waxa weeye taxliilinta waxyaabaha yaryar si loo ogaado fikradii kulliga hay'ad ee soo gudbinaysay taas haddaynu galno qodobka saddexaad ee aynu hoos keenayno waaxdan labaad waxa weeye naqdiga iyo miliftirka uu u gudbiyay Dr. Abdulwahab Al-Masiri mashruuci reer galbeedka tagitaankii Mareykanka uu doctorku tagay iyo hadduu alla idmayo mashruucii reer galbeedka oo inta badan dulgoodisaday akhris ahaan iyo ogaal ahaan aadka ugu dhawaaday waxay keentay doctorku inuu si fiican u fahmo fikradda guud ee reer galbeed ka dhaqaaqayaan iyo fikradaasi qaabka ay u keenayso dhaqamo iyo u keenayso tacaamulaad dawladnimadii hadday noqoto habu dhaqankii bini'aadamku dhaqmayay hadday noqoto iyo xataa qofka waxa weeye markuu nafsi ahaan keligiiba yahay tacaamulkiisa gaarkaaba ha noqotay qaabka u saameynaysa fikradda guud wuxuu ka bilaabay doctorku inuu naaqisho laba marxaladood oo muhiim ah oo reer galbeed mareen oo ah marxaladii xadaasada iyo marxaladii maa bacda alxadaasada marxaladda xadaasada iyo markuu naaqishay marxalad maa bacda alxadaasa muu ka go'in doctorku waxa weeye fufka maraaxishii hore oo dhan oo dee waynu ogsoonay mashruuca reer galbeed min laga soo bilaabo falaasifad maalda ama falaasifad dabiiciyiin ilaa lasoo maro sufsadaayiintii oo la imaado suqraad iyo aflaadoon iyo rusto
iyo wixii ka dambeeyay labada saddexda filosof ku taasuray ama naqdihaan ha ugu taasuraan ama dhambalashaan fikradoodii ay soo dhambalanayaan ha ugu taasuraan inay isku xidhan tahay cusurta reer galbeed ase laakiin wuxuu tan u doortay maadaama uu iminka mashruuca reer galbeed uu ka dhaqaaqa labadaas in iyaga la naaqisho oo fikradaha kulligii ay ka hadlayaan la naaqisho kadibna la eego barnaamijkii ama midhihii ay dhaleen xadaasada doctor cabdiwahab masiir wuxuu soo gudbiyey marka koobaad inuu eegay ru'yada kulliga ama aragtida guud ee ka dhaqaaqayaan ee ah in ilaahay subxaanahu watacaala iyo sharcigiisa laga fogeeyo nolosha oo dhan hadday noqoto mid siyaasad hadday noqoto mid dhaqaale iyo hadday noqoto laamaha kale ee noloshu ay gasho oo dhan xataa tacaamulka ama la dhaqanka qof iyo qof in laga saaro wixii diin xidhiir la leh dabeetana lagu soo koobo laba maxoor oo keliyaata lagu soo koobo wixii caqliga mumkinka ama suuraka iyo wixii tajrubada ama tijaabo gale ee laab lagu ogaado wax kasta oo aan labada ahayn ama aan caqli soo marayno qofku aan isla wada fahmi karin ama aan waxa weeye laab gelayn oo la odhan karaynin waxa weeye wax qofka waxaasaa haya ama hal loo geeyay waa laba inaanay jiritaanka waxba ku lahayn fikradda guud ee reer galbeed ay casrigaa dhigeen waxay usoo taraaraxday oo ay timi waxa weeye waaqici bay timi oo waxay gashay markiiba habkii insaanka lagu eegayay aragtidii insaanka lagu eegayay bay dhashay aragtidaas oo noqotay in bini aadanka keliya ta lagu koobo inuu yahay jidh laga saaro meesha ruuxdii taasina ay keento in lagula dhaqmo bini aadanka wax kasta oo kasoo fulaya wax kastoo uu aaminayo iyo wax kastoo falaya intaba lagula tacaamulo qaab iyo tus itaabsi ah waxbaan aaminayaa waxaad aaminaysaa muxuu noqonayaa ma wax la fahmi karaya mise maha wax la fahmi karayo ma wax tijaabo gelaya mise wax tijaabo gelaya ma xataa akhlaaqdiina ay noqotay oo saddexdaas saa isugu soo waxa weeye walaaloobayaan marka ru'yada jiritaanka laga aaminsan yahay ilaahay laga fogeeyo bini aadankana loo arkay inuu yahay keliya tajasud oo ruuxdii laga fogeeyo ay ka dhalanaysa inay akhlaaqdu noqoto nisbi oo wax kasta oo adigu akhlaaq u arkaysid ninka ku barbar fadhiya oo odhan karaya ma aha akhlaaq oo anigu mid kala ayaa runtu waa fadiila miyo wanaagsanta runtu ha ninkan kale wuxuu arkay inaan wanaagsanayn dabeetana ay qaabka mashruuci reer galbeed uu marka koobaad saddexda aragtiyood uga soo sal qaaday markuu saddexdaa diraaseeyo ee uu ka hadlo wuxuu faaleynayaa habkii ay saddexdaasi jiritaankii reer galbeed iyo dowladnimadoodii iyo la dhaqankii xataa dowladaha kale iyo dadka kale ay la dhaqmeeyeen ay uga soo muuqatay isticmaalkiibuu faaleynayaa dhaqamadii kaluu faaleynayaa ee reer galbeed ku jiray wuxuu faaleynaya xataa aragtidaas ay aamineen reer galbeed qaabka u gashay laamaha noloshooda yaryar guurkiibuu faaleynayaa riyaadadii iyo ciyaartiibuu faaleynayaa fikradihii lasoo saarayay buu faaleynayaa qaab noocaasa ayuu marka koowaad isugu soo xidhayaa doctoorku markuu ka dhammaado marxaladda xadaasada wuxuu gelayaa dabeetana marxalad maa bacda xadaasa oo uu leeyahay markii aan maraykan joogay isagoo sheeko ka sheekeynaya insaanku markii reer galbeed uu soo dhaafay xadaasada uu arkay xataa caqliga iyo tajribada zaatu inaan mararka qaarkood laga dhigi karin inaan laga dhigi karin markas iyo meel laga bartilmaameed oo laga dhaqaaqo maadaama caqliga uu qabadee su-aalo isaga qudhiis oo su-aalaha jiritaanka aan marnaba suurahayn lagu damiyo halkeynu ka nimi maxaynu umannahay iyo halkee loo socdaa ay ka imanayaan su-aalahaas caqliga qudhiisa in waxaasoo dhan aan markasba laga dhigin ee markaska iyo bartilmaameedka laga dhaqaaqaya laga dhigo ladada iyo mutcada iyo manfacada war maxaa waxa weeye aniga iiga biyo caba war maxaa mutcadayda iyo dhadhansigayga ku jira in waxyaabaha laga dhaqaaqo deetana uu ka sheekeynaya isagoo meel fadhiya maqaaxi ay isugu iman jireen niman mufakiriin oo xataa qaarkood jaamacadda u dhigi jireen doctor cabdiwahab masiiri in waxa weeye la gorfeynayo fikrado jiritaanka ku aadan dabeetana marka waxa weye cabdiwahab masiiri shaqaf iyo dee doonis badan buu hayaa mawduucaase uu su-aalihii soo dhigo uu soo dhigo taxliilkii uu soo dhigo kan iyo keer la odhanayo wadhiyo maxaa ku kalifay madacsiirkaagii waxa weeye iska cabdi shaaxaago dabeetana iska waleeshid waayo fikradda ahayn wax la taxliiliyo su-aalo wujuudiyo jiritaan la isku furo meesha maba taallaba iska baashaal waxaaga iska cab iska soco wixii waxa weeye laga tacaamulayo ee lagu wada dhaqmayana ha noqoto waxa la istaabsiin karayo la istusi karayo habkaas uu taxliilinaya wuxuu taxliilinaya insaankan bini aadankan laga dhigay insaan alwadiifa keliya ta qof bini aadan oo shaqo uun waxa weeye loo igmaday insaan alaali uu taxliilinaya wuxuu taxliilinayaa bini aadanka iyo xiriirka leeyihiin waxa weeye insaanka kale oo uu leeyahay waagii hore takaaful baa jiray iyo is ahaansho iyo waxa weeye inaan waxa weeye qofkii dhibban aan lagu daawan dhibka ase laakiin iminka qof kastaaba uu fardaaniyo aniga meesha ay noqotay keliyata hab noocaas ayuu taxliilinaya mashruuca reer galbeed isagoo dee waqti badan siinaya oo kutubtiisa waxa weeye alfalsafa almaadiya wa tafkiik alinsaan iyo alcalmaaniya aljuziya walcalmaaniya ashaamila iyo alfirdows alardi iyo kutubta kale la halmaalay oo mashruuca reer galbeed ku naaqishayay intaaba ay ka muuqato fikradaha waaweyn marka qofkii waxa weeye doonaya inuu dee mawduuca aada uga sii baaro wax ama kasii dharsado uu ka arki karayaa kutubta haddii uu akriyo
haddaynu halkaa kaga soo waxa weeye waabana mashruuca reer galbeed iyo masiiri wixii uu ka yidhi naqdi ahaan miliftir ahaan iyo qaadash ahaan wixii waxa weeye naga anfacaya aynu nimaadno afkaar masiiri uu waxa weeye ama yaanan odhanba afkaarba waxyaaba caawinayay fikir ahaan fikirkiisa oo ay muhiimta inaynu sheegno si qofka waxa weeye doonaya inuu cabdiwahab masiiri hadhow waxa weeye dhabadii uu qaaday u fahmo ama fikradihiisu qaabkii uu soo dhigayay uu arko waxyaabihii bii-adii iyo deegaankii ku caawinayay waxyaabahaas cabdiwahab masiiri fikradaha uu qabo iyo waxyaabaha bii-ada uu arkay inay caawinayaan fikradaha waxaa kow kaa inuu insaanku ta'amulo inuu insaanku dhugma yeesho inuu waxa weeye aanu u arkin wax kaste inay yihiin wixii ugu dambeeyey inuu wax isku xidhxidho akhriska badiyo fiirsashada badiyo tacaamulka waxa weeye wax la tacaamulayo dad iyo deegaan iyo wax kastaba uu badiyo dabeetana taas ay keento inuu marka koobaad baraadkiisi iyo wacyigiisii aada weynaadaan kadibna uu fahmo qaabka ay wax isku xidhayan fikraduhu ay una dhalayaan dhaqan doctoorku wuxuu markasta kasoo horjeedaa wuxuu u bixiyey taqliidka waxa weye weliba taqliidka indhahala ku indhago-a ee ibdaaca joojinaya hadday noqoto in fikrada lasoo waarido oo reer galbeed wixii ka dhaqangalay baa inu aragnayna deegaankeeni iyo dhulkeeni ka dhaqangalayaan habelugu kala duwanaada fikir habelugu kala duwanaada diin iyo waxyaabaha kale la halmaalo doctoorku nihaa'iyan welibana wuxuu ku taclinayaa in waxa weeye calmaaniyadu waxaaba laga yaabaa inaynu waxa weeye carabku inaga boobayo aynaan waxoogaa soo taxliilina in calmaaniyad marka koobaad uu u qaybinayo alcalmaaniya ashaamila iyo alcalmaaniya aljuziya alcalmaaniya ashaamila wuxuu u bixiyey doctor cabdiwahab masiiri waa in laga dadafeeyo dhan kasta oo nolosha ilaahay subxaana watacaala iyo naska waa fikraddii marka koowaad aan soo sheegayna mashruuca xadaasada inu ka dhaqaaqay taas aad buu u taxliilinayaa naqdinayaa mariftirayaa waxa weeye geed ku xidhaya oo noqdada ah in faslu diin can kulli majaalaat alxayaa keligiiba maaha daha cabdiraxmaanna waa kii inta badan mashruuciisa u qalin qaatay akhlaaqda iyo kala saarista diinta nolosha iyo kala saarista diinta xataa markii dambe gaadhay in diinta iyo kala saarista diinta qudheedii loo soo socdo markuu taa kasoo waabto wuxuu u bixiyey ayuu imanayaa alcalmaaniya aljuziya oo ah in la kala saaro diintii iyo siyaasadii oo jaanibkaasa mashruuca islaamiga siyaasadda ku aadani marka koowaad waxa weeye in ilaahay subxaana watacaala diinta markii uu soo dhiibay nebi maxamed uu mafaahiimta asaasiga iyo waxyaabaha salka waa bini aadanka o dhan uu soo raaciyay hadday noqoto siyaasad tusaale ahaan oo kale cadaaladii in waxa weye la cadaalad falo shuuradii in la tashado oo aanu qof meesha ku keliyeysan kuna takrifalin tawsica sarawaadkii in waxa weeye wixii hantiya mujtamaca dhex yaala la qaybiyo oo aanay dabaqad keliyii ku keliyeysan iyo waxa weeye niqaada kale intaa la imanaya khaliifadii ilaahi subxana watacaala bini aadanka looga dhigay ay ku qumayso kadibna in lagu ijtihaado waaqici oo waxa weeye faradiyaadka joogto kastaaba ay leedahay uu ka duwan yahay tii hore aynu inagu fahno teenan waxay u baahan tahay inagoo dhaqan gelinayna usuushaa diinta ku qoran doctoorka in badan waan arkay isaga oo waxa weeye calaamadinaya alcalmaaniya juziya in loo qalad fahmay inuu rabo inuu gebi ahaanba qaato waxa weeye inaga qudheena ku naqdii karaynaa mafhuumka in calmaaniya qudheeda lasoo qaato waxa weeye laga doodi karayaayo dee calmaaniya bixaddi zaatiha maaha magac iska socda waa magac taariikhna leh fikrada uu ku yimina leh marka hab noocaasuu doctoorku kaa saarayaa labadoodubana waxay hoos imanayaan mashruucii reer galbeed uu waday ee ahaa in diintan iyo nolosha guud ahaanba iyo gaar ahaanba la kala saaro taasuu markaa doctoorku taqliidka acmaa in fikrada inta lasoo waarido mujtamacaad kale loo keeno ayuu wuxuu doonayaa inuu mooso sidoo kale doctoorku wuxuu aada u tirsi gelinayaa oo in badan ka hadlayaa alqiraaca alcaqliya wuxuu bixiyey in qofku isaga iyo cali ciisad bijovic in qofku wax u akriyo qaab caqliyeysan oo aanu keliyaata waxa weeye kutub fara badan oo waraaqa qofkii ku xaroonayaan aanu noqon balse uu qofkii intuu waxa weeye u kaadsado oo kitaabba mar waxa weeye si fiican u akriyo dabeetana uu gaadho marxaladda ah inuu soo saari karayo mashruuc hadhow sidoo kale doctoorka waxyaabaha ku soocanaa sheegideedana mudan tahay waxaa ka mid ah qaabkii uu la tacaamuli jiray waaqic doctoorka markii uu ka yimi maraykan wax ku soo bartay rixlat alcaqliyana rixlat alfikriyana aad buu uga sheekeynaya waxaa ka hor yimiyey fara badan wuxuu u bixiyey addiyaab athalaatha oo ay ka mid ahayd jacaylkii uu qabay qofku inuu waxa weeye lacag kasbado oo ay ka mid tahay inuu waxa weeye bani aadamku markasta doonay inuu soo saaro mashruuc isku dhammaystiran hal mar iyo iyaygii saddexaad marka di'aabtaa saddexdaa ee uu doctoorku waxa weeye faalleynayay ee uu gorfeynayay iyo sidii waxa weeye mujtamacii uu yimi ee masaarida ahaa
uu doonaya inuu u fahmo waxyaabaha u arkaan waxsan, waxyaabaha u arkaan waxsiloon iyo waxyaabaha kale la halmaala. nuqdadaas waxay aada mudan tahay inaynu fahanno maadaama aynu kusoo kala baranayno qaar fara badan ay naga midi deegaano kala duwan, xataa kuwa deegaankeeni iyo mujtamaceeni joogaa ay wax ku baranayaan manaahij ay u dhigaan dad kale, inaynu barano bal sidee baynu ula falgalnaa waaqiceen. waa aqooni waa tane afgaradme waa kuwi waxa weeye nimankii odayaasha ahaa ee Hadraawi iyo Muuse Galle iyo Siciid Saalax iyo waxa weeye iyo gaariyaadka uga hadlaya noqdadaas. haddii intaa aynu kusoo dhaafno afkaarta ama waxa weeye waxyaabihii bii'ada ku saacidi jiray Dr. Cabdiwahab Masiiri inuu soo saaro mashruucan, aynu nimaadna nuqdada ugu dambeysa ee fikrado aynu kasoo dhambalan karayno ama kasoo dheegan karayno Cabdiwahab Masiiri oo waaqicina anfacaysa. kolley intii aynu soo sheegnayba waxyaabo mufiida, gaar ahaan waxa weeye mashaariicda qaabka uu soo gudbiyey iyo qaabka uu naqdiyey ee uu laga bilaabo saxarka waxa weeye isha ku jira ilaa uu gaarayo guud ahaan samaysanka qofeed uu ku gowsiiyey taxliil iyo waxa weeye uu ku gowsiiyey inuu waxa weeye faaleeyo. haddaynu ta koobaad ka dhigno afkaarta waaqicina anfacaysa, in marka koobaad qofku uu iska eego afkaarta mujtamaca yaalla, dhaqanka iska eego, fikradaha iska eego mujtamaca yaalla, aanu keliya ta ku goyin fikrad yaroo kooban, balse uu baaro fikradahani qaabkay isugu xidhan yihiin, fikradahani bucdiga taariikhiga ay leeyihiin, qaabkay kusoo samaysmeen inuu eego, hadday noqoto liberaaliya, hadday noqoto calmaaniya, hadday noqoto nasawiya iyo waxyaabaha kale mafaahiimta reer galbeed dhankooda fufahaan inooga imanaya, inuu qofku u kaadsado uu idhaahdo war fikradahani qaabkay isugu xidhan yihiin horta aan eego, kadibna aan gaadho nuqdada inaan wada fahmo ru'yadii oo dhammaystiran. taasi waa fikradaha uu Cabdiwahab Masiiri dhaqanka ka geliyey, faa'iidadeena ay u baahaneen waaqiceena iyo joogtadeena ka muuqato. tan labaad waa naqdiga uu Dr. Cabdiwahab Masiiri u jeediyey mashruuca reer galbeed, naqdiga uu u jeediyey iyo mariftirka uu u jeediyey Dr. Cabdiwahab Masiiri mashruuca reer galbeedka wuxuu mudan yahay inuu qof kasta oo Soomaaliya akhriyo, qof kasta oo Soomaaliya fahmo, waxa weeye welibana uu arko taxliilka waxa weeye iyo faalaynta uu saarayo. waxaa jira video uu ka duubay Dr. Cabdiwahab Masiiri markii uu Masar yimi mashruuca reer galbeed oo uu u bixiyey manhajiyat atacaamul maca alfikr algarbi. taasina way mudan tahay in qofku daawada haddii uu haleel iyo waqti u helo. intaana aynu kaga nimaadno waxyaaba aynu ka faa'iideyno ama joogta ahaan aynu waxa weeye waaqiceen aynu la falgelin karayno. gabagabadii iyo guntii waxaan kusoo idleynaynaa Cabdiwahab Masiiri mashruuciisu waa mashruuc mudan in la akhriyo, waa mashruuc mudan akhris, waa mashruuc mudan fahan, waa mashruuc mudan dulgowdiisi, waa mashruuc mudan inuu qofku aan u akhriyin qaab kala tagtagsan ee u akhriyo qaab isku dhammaystiran. wuxuu ka faa'iidayay wuxuu arkayaa marka uu dhammaystiro ee uu gaadho gunta ugu dambeysa, marka waxa weeye arko isaga oo mujtamaciisii ula tacaamulaya qaab fikrada yaryara oo dabeetana isku soo xidhaya. waxyaabaha ugu waaweyn uu ka faa'iidi doonaan waa nuqdadaas aan aaminsanahay in qofkii dhaqamadii yaraaye mujtamaca dhacayay, hadalladii yaraaye la iska lahaa, waxyaabihii yaraaye u muuqmuuqday maalinlaha uu u dallaco fikradihii keenayay, dabeetana hadduu xal u doonayo fikradaha xaliyo, haddii uu doonayo inuu sii badiyo oo wanaajiyana uu kuwaa badiyo. waa waxyaabaha aynu ka faa'iideyna shakhsiyadda Cabdiwahab Masiiri. kolleyba dee waa la garanayaa inta badan oo Cabdiwahab Masiiri gaar ahaan waqtigii uu dhintay allah u naxariistay aad buu caalam alislaami uga dhex muuqday, isaga iyo nimankii kale waxa weeye u qalin qaatay mashruuca reer galbeed naqdigooda iyo waxa weeye faaliintoodaba. kutubta haddaynu kusoo khatayno Cabdiwahab Masiiri qoray mudanna inuu qofku ku bilaabo ama akhriyo. kitaabka waxa weeye rixlat alfikriya uu ku dhiteeyey taariikhdiisii iyo sooyaalkiisii fikireed iyo fikradihiisii ugu muhiimsanaa. waa kitaab mudan in la akhriyo haba weynaadee. kitaabka uu kaga faalloonayo alfalsafa almaadiya watafkiika alinsaan reer galbeedka oo ila walaaliyeen alxadaasa wamaa bacda alxadaasa iyo alfirdows alardi oo tajribadii maraykanka gaar ahaan diiradda ku saarayo. saddexdaa kitaabna waa saddex kitaab ee waxa weeye qofka mashruuca reer galbeed naqdigii u jeediyay Cabdiwahab Masiiri markuu rabo inuu ogaado daaqadda uu ka geli karaya noqon karta. kutubta kale oo Cabdiwahab Masiiri qoray iyaguna mudan in la akhriyo waxaa ka mid ah kutubtii uu ka qoray المنهج السؤال الثقافة والمنهج الثقافة والمنهج iyo afarta kitaab uu ka qoray waxa weeye sahyuuniyada markii dambe uu isugu geeyay mawsuucada. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa hadduu alla idmo. wuxuu sidoo kale qoray doctoorku buxuusaad fara badan iyo maqaalaad fara badan oo uu ugu mudan yahay akhrinteeda maqaalkii ugu dambeeyey intaanu dhiman uu qoray al-insaan washay, oo runtii shayiqa jamiila oo fiican oo qofku waxa weeye uba soo koobi kara kitaabkii alfalsafa almaadiya watafkiika alinsaan uba soo koobi kara. intaasaan kusoo khulaaseynaa
caawa kalfadhigeenan aynu kala hayn naaqashaada iyo waxa weeye soo bandhiga cabdiwahaab almasiiri maalmihiisii iyo mucda afkaartiisii. aad baa umahadsantiin.